nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi tobankan dambe wuxuu bixin jiray dadaal uusan bixinin waqtiyada kale wuxuu u dadaali jiray si uusan u dadaalin bisha inteeda kale dadaal ziyaada ah oo laaban oo aad u korsan ayuu nabigu la imaan jiray salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi sababtu waxa weeye tobankan dambe waxa la dhihi karaa waa bisha laf dhabarteedii way dhuuxii way meeshii ugu muhiimsanayd bisha way waxa ku jira habeenkii laylatul qadriga ahayd sida nabigeenu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi waxaad ka raadisaan buu yidhi tobanka dambe ee bisha haddana habeenada tirada isdheer xadiid khaasa wuxuu ku tilmaamay nabigu sallallahu alayhi wasallam habeenka 27aad axaadiista qaarkood waxaa ku sugan 21 habeenkay ahayd in laylatul qadri ay noqotay laakiin nabiga salawaatu rabbi wa salaamu calayhi la halmaansiiyey saxaabadu markay amaaraadkii calaamaadkii ay fiiriyeen sida uu tilmaamay 21 bay ahayd taasi waxay tilmaamaysaa habeen gooniya oo loogu tashan kara ma jiree waxaa suurtagal ah tobanka in ay sanadba habeen gasho waxaa dhici karta inay sanad 21 ka gasho sanadna 23 ka gasho sanadna 25 ka la geliyo sanadna 27 sanadna 29 marka adiga waxaad haleeli kartaayood hubtaay waxay tahay marka tobankaba dadaal bixisoodan kala goynin inaad helayso shaki kuma jira marka saas daraadeed baa nabigeenu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wa salaamu calayh war inta kale oo dhan haddii lagaaga xoog batood kari weydo oo lagaaga qaalib noqdo ama aad ka caajisto toddobada dambe ku taagsa buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wa salaamu calayh sidaas daraadeed habeenkaasaa ku jira si gooniyuu nabigu u raadin jiray salawaatu rabbi wa salaamu calayh lianna waa jawhar wax walba ka qaalisan in la raadiyana ay tahay sanadaha mid ka mida nebi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu calayh tobanka bisha ugu horeysuu itikaafay isagoo raadinaya laylatul qadri haddana tobanka dhuxuu itikaafay isagoo laylatul qadri raadinaya tobanka dambe jirtaa baa leeyahay markaasuu tobankii dambe haddana itikaafay nabigu salawaatu rabbi wa salaamu calayh waxay raadinta la raadinayo ahmiyada ay leedahay baa waxay tahay miduu quraanku tilmaamayo waa habeen عملك للي مادو خيرك للي مادو طاعة للي ماداي أي كخير بدنتهاي كم بلاد أو إيادو أين كتشرين خيرك يا طاعة للا إيمان لها كم بلاد أو إيادا أين كتشرين أو زمن كإنتي سكلا خير إيا طاعة الله تمد إيا الددال آد بحسيبا وحي كخير بدنانيا هل هبين ددال إيا خير آد بحسيب إلهي فضلك يسوى داق واي هيبوي أمد النبي محمد صلوات ربي والسلام عليه إلهي أقول دقي عمري جيدا لغو كبي لأن هلك هبيني وحي أردق ميسا سديتا إيا الصدح سنة إيا الزيادة أردق أنت إلهي تبارك وتعالى بمهد اسكاله دق ذا أمد سيي نوغد دقي لكن نعسك عقل الله وها والروح انتي مرتي أن كفى إذي سنين سيدانا أي كردافت نبينا وحليه صلوات ربي وسلامه عليه رمضان كمركو قال لي فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم نينك القدي متقنا نينك الشق إنكارتو كد عليه قتن متقنا ونينك ليلة القدر خير كذا لقى قديه واحد سيداس درادت أيا النبي صلى الله عليه وسلم ددالك سيادة أبحن شري سئو هبينك أهله oo u haleelo oo uga faa'iideysto salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ummadii sana waa u jiday in dadaalka ay kaga